السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن السلام قيادة الشرفت لحل كستويدين تهي وعنا وناكسن يوم كلي مقال عنصوب معناتها مقال كانوا حكسابسين هاي شيكو قيمة بدن قسارها وبدل فائدة المقال كسوفة فحسن أيام جعلستين أن يسوق البيد شيكا سكاون إلى سعود وناكسن يفضل حتى كان لكم كقوس يتسبسكرايب ونصار مقاك لايك نصار أوسكار وانين جرمال wuxuu qabay hal dhib taasoo ahayd lacag jacayl. Wuxuu ahaa nin aad u lacag jecel. Asxaabtiisa markuu la fadhiyo wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan wax sameeyo, inaan wax yeesho, inaan hanti badan helo iyo wax la mid ah. Asxaabtiisana way ku qosli jireen waayo wuxuu ahaa nin dharka talo ama xarqaanle ah. Oscar wuxuu saaxiibadii ku yiri waad arki doontaan waxaan sameeyo. Wuxuu iibiyay ama gaday wax walba oo hanti uu lahaa, wuxuuna tagay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka California. Mareykanka uma tagin inuu xirfadiisa ku shaqeeyo, balse Oscar wuxuu ka maqlay qaar ka mid ah eheladiisa iyo asxaabtiisa in Mareykanka uu jiro kayd dahab ah oo dhulka ku kaydsan. Waxay dadkaasi u sheegeen Oscar inay maqleen in haddii aad dhulka qodo ama faagto uu kaaga soo baxayo kaydka dahabka ama godka dahabka. Mar walba oo aad meel qodo inaad ka helayso dahab. Wuu dhaqaaqay wuxuuna soo iibsaday qalabka dhulka lagu qodo si uu dahab u raadiyo. Halkan ayuu ka raadiyaa, halkaasi ayuu ka raadiyaa. Dadka ayuu weydiiyay laakiin waxba waa uu ka heli waayay. Heer uu gaaray inuu $1 ugu dambeeyay uu isticmaalay lacagtiisii oo dhan. Dhulka ayuu fadhiistay isagoo ooyaya gaajo darteed. Dariiqyada ayuu u baxay oo uu fadhiistay isagoo dadka cunto weydiinaya heer uu gaadho inuu cuno cuntooyinka qashinka la soo raaciyo. Dariiqada isagoo fadhiya waxaa soo martay gabadh. Roob ayaa da'ayay waqtigaasi. Naxariis ayay u muujisay wayna dhaqaaqday waxayna u soo iibisay teendho. Waxayna ku tidhi wiilkaygiiyow qaado teendhadan oo roobka ka gal. Teendhadii ayuu qaatay wuxuuna la tagay mid ka mid ah wadooyinka tareenada ee California. Kadib teendhadii ayuu dhex seexday. Muddo kadib wuxuu arkay surwaalkiisii oo jeexmay waana uu dhibsaday waayo waxaa jiray roob iyo qabow daran. Jawigii wuu degay. Kadib wuxuu arkay god dhulka hoostiisa ah kaasoo cidlo ah. Godkii ayuu galay halkaasi ayuuna iska degay. Su'aal ayuu isweydiiyay isagoo leh maxaan ugu baahanahay teendhadan iminka. Waan jeexjeexay kadibna surwaal ayaan ka tolan. Teendhadii ayuu kala gooyay kadibna wuxuu ka sameeyay surwaal. Surwaalkii ayuu si fiican ugu labistay kadibna wuxuu dhex maray suuqyada California isagoo aad ugu xaragoonayo. Iyadoo sidaa tahay waxaa arkay niman shaqaale ah oo dhismaha ka shaqeeyo. Surwaalkii ayay fiiriyeen, way qabteen kadibna waxay weydiiyeen nooca dunta ah ee uu ka samaysan yahay waayo waa dun adag oo teendho laga sameeyay. Waxay weydiiyeen yaa sameeyay surwaalkan. Wuxuu ku jawaabay aniga. Waxay yidhaahdeen waan u baahanahay. Nimankii shaqaalaha ahaa waxay Oscar u kaxeeyeen ninkii madaxa shaqaalaha ahaa. Kadib wuxuu ku yidhi ma awoodi kartaa inaad noo samayto ama noo keento 30 surwaal oo noocan oo kale ah. Wuxuu ku jawaabay haa, lacag horumarin ah isiiya. Lacagtii ayaa la siiyay. Teendhooyinkii ayuu soo gatay kadibna 30kii surwaal ayuu soo sameeyay wuxuuna u keenay ninkii madaxa shaqaalaha ahaa. Lacagtiisii wuu qaatay. Kadib shirkad kale ayaa ka codsatay Oscar inuu u sameeyo 100 xabo oo surwaal noocan oo kale ah. Oscar ninkii kale 100kii surwaal ka codsanayay wuxuu ugu jawaabay haa. Kadibna wuu soo sameeyay. Sidii ayuu ku noqday dhinacaan ah. Ma garanaysaa ninka Oscar cida uu yahay haddaba?
waa ninka iska leh shirkadda ugu weyn ee soo saarta saraawiisha jeeniska ah ee caalamka. waa ninka iska leh shirkadda ugu weyn ee soo saarta shirkadaha surwaalada jeeniska soo saarta. xigasho yaalwasi musu waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkaneeto. fadlan haddaad muuqaalkan like noo saar. waxaa inoo balan video xog. wasalaamu calaykum.